والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إخواني وعدي الشيخ أنا وفر أنا وعدي أحيامها ما أنت تتكفى وين الدين تودا يراعيتك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحا أصله حب الدنيا حب الجاه حلقة هذا رك هذا ماشى فدية إن إلهي قلبي قد أقولنا يترافق مقرافك إلا ذي يقولي ما فينا عليه وحب الجاه نصيبه كما دبيس لكن مركز الدون مال إسكدك تدوح حاصل روحي كلنا وانا يا نوح بقى هاي شيء غير الله سيه وإننا وضينا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيدو أديوكوها markaas waxaan noo dhadhamaysa oo aan dhadhansanayna nabiga itibaaciisa calayhi salaatu wasalaam bal qiyaas saqdhaxe waqti dambe uu soo baxay nabi ilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay soo saartay gaajo markuu soo baxay haddana waxaa ka bacdi waxaa soo baxay sayidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu nafsu shay haddana waxaa soo baxay sayidina umar الخطاب رضي الله تعالى عنه حدنا سيدنا عثمان حوينكي iyo dadkii miyaha xaqteen ma guri wax yaal ma lamaya ma waxnoo karisid maxay tahay miyay dhaheed waxay ku qanacsanaayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala qismigiisi taaya markan laga rabo inaan ugu dayno nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ara talib ad-dunya wa in tala umruhu ونال من الدنيا سرورا وانعما كبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهدم waxaan ku arkay qofka dalbay adduun sidii qof guri dhisay oo kale markuu guriga uu dhameeyay uu dhameystiray ku dubay imisaan aragnan guri dheer inta dhisay asagoo gurigii gelin ka dhintay isaga miyaa marka umriga ma isaga iska leh rabbul izza iska leh subhanahu wa ta'ala gurigaas uu taagay su'aashiisana isaga ayay u taala waxa laga yaabaa ilmihii uu ka tagay isla markii dagaal isku bilaabaan inta laba bahood iyo saddex bahood noqdaan ayama ayagoo hal baha inay yiraahdaan mid u yiraahdo hadda loo qado iyo bir hal la sugo xogaa faaliyo waxa ka ahna la sugo dagaal baa bilaabanayo marka ikhwaani waxaan uga dayranaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam maanta aan weydiinayay meel masjid ahaa waligeen ma nagu jira hal qof oo gaadho darteed caloosha ugu xirtay dhagax miyuu nagu jira ama nagu ma jiro wala socotana qaswat khandaq nabi alayhi salatu wasalaam asxaabtii markii ay sayidkii Salmaan al-Farisi ku taliyeen magaalada laga dhigo khandaq god loo qodo si difaac looga galo asxaabtii qodaysa meel adag ku soo baxday gaajo daran jirto hal dhagax iyo wax la mid ay ku xirteen ay arkeen nabiga laba dhagax ay ku xiranta calayhi salaatu wasalaam meeshii markuu micwalkii ku dhuftay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu burburay wuxuu ka dhigay wax iska fudud oo jilicsan waatu suuriga u sameeyay sayidina Jaabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu kadibna meesha muujizada cajiibka ka daahirtay hal nagu ma jiro ma nagu jiro qof maanta shaatiga qamiiska uu wata kaliya dhar kale oo wax kale guriga u oolay oo habeenkii uu dhaqdo maana maalintii aysan suuragalahay maxay inuu ku socdo rabaa nagu ma jiro ma nagu jiro qof shalay iyo maanta iyo shalay iyo tii ka horeysay aan waxba cunin waata magaca xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii Faatima markay u keentay khubsiga billan baan guriga waxba laga karinay marka saas ay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam saas ay adduunka noo nacbaysiinayay ama nooga fogeynayay maxaan hadii adduunka loogu fidiyo sidii ay loogu fidiyo umadii anaga naga horeeyay ama gaaladii waxaa naga dhacay inaan tanaafus sameeyno say u tanaafuseen oo markaas ayna halaagtay sidii ayaga u halaagtay tasmiya marka wax daran ugu jirta loogu ma jirto hatta fuqaraa muslimiin way ka horgalayaan aqniyaa muslimiin jannada maxaa ay xisaab loo weydiinaya maalkii madna ma leh hatta ninkan muslimka qaniga markuu jannada galay su'aal baa ka dambaysa waati nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka markii qiyaamaha la geeyo kama zuulay labadiisa gumada meesha ay saaleen hatta yusal aan arba'in inta afar shay laga weydiiyo maxaa kamid ah afartaas ikhwaani maalkiisa meeshu ka kasbay meeshu ku bixiyay هذا فقيرته محل ويدين مر
laakiin ninkan qaniga su'aasha sababta ma rumaysan kartaa qofka maanta aan waxba haysan oo faqiirka masaakiinka muraqara ah inuu ka nolol fiican yahay qofka wax haysta maxay qofkaas stress badalay dhiikar iyo waxa ku dhacay iyo sokor taleefan soo qabanay ku wareeray ninkan shantiisa salaad tukana wixii uu helay waa cunaya horu ka seexanaya wax ka maqal ma arag marka adduunku waa saas marka waxaan rabaa ikhwaani inaan saas adduunku uga fogaano annagoo ka qaadanayna biqadri xaaja wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu talagalay laakiin aanan waqti badan ku luminaynin si aysan ayada hadu inoo mashquulin waxaan uga daynaa nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha marka aan ku soo xasuusanay nabiyullaahi maxamed waxaa ka mid ah inaan badino salligiisa calayhi salaatu wasalaam uma kula qorxoonaan lahayd in nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yidhahdo yaa rasuul allah waxa ku soo salaamaya hebel uu kaa radiyo salaanta wili magacaaga la sheegay hebel baan leeyahay maxaad ku helaysaa taas waa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa nabi qof salaama ma jiro ilaa nabi ilaahi wuxuu ku soo celinayaa ruuxdii wuxuuna ka celin salaamtii ma jeceshahay markii qiyaamo la tago inaad nabiga u dhawaato calayhi salaatu wasalaam oo qofna uusan kaa xigsan waxaad ka heli kartaa inaad salliga nabigiisa calayhi salaatu wasalaam markii qiyaamaha la tago waxaa dad nabiga ugu dhow qofka ugu salliga badan haddaad bilyan akhrisay hadduu mid bilyan akhriyay uu jiro kaasaa kaa horeeya haddaad kun akhrisay ninkii 2,000 kaa badiyay haddaad 10 kun akhrisay ninkii 15 kaa badiyay marka nabiga waxaa loogu dhawaanayaa marka qiyaamaha la tago calayhi salaatu wasalaam qofba intuu salligiisa u noqdo ma jeceshahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu naxariisto hal salli oo keliya uu nabiga ku sallisay calayhi salaatu man salla calayhi salaatan waahida salla allahu calayhi biha 10 صلاة الله سبحانه وتعالى وأنا حريص ومعه اللهم صل وسلم وبارك عليه طبعا مرة إلهي كون حريص عليه بل كل فكون تمامكم كل فوق تضباطكم كل فوق بقولكم كل فوق هاي هلسة ملايين هلسة وحيابا علماء أي إرادة أنا مكسو قرروها كبدا كثرة الصلاة وما بها النشيط كفرة وحاوي واحد كراعي سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفنا وده يميز وحاول دينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أورادك ولا جيا وأي شيء الله بعض لكن سلك النبي عليه الصلاة والسلام الله بعض النبي يقول شيء عليه الصلاة والسلام كم نامكم كريم حتى قفك سلك النبي عليه الصلاة والسلام وحنا نقول محبوب لدى الناس تذكر لم بعد علاني وحنا نقول صفاء القلب قلبك سافر نقول وحنا كهنا يا حاجات كيسي وقت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كم أجعل صلاتي إمسان كيرا نصف فقط نصف هذا كان خير هذا زيادة خير لك ثلثان إلى أمر كده وحنا كده كل صلاة وحنا كده يا وكاسب حالي أديك هذا ما أنت محنوق يا هم سماه يدم بداف وبدون آخره إذا تكفى همه ويغفر ذنبه هم بيجانا والله ترتري dembigagana waa la baabiinaya waxa ku dhigay marka soo dunya qaraba waxaad ku hashtaa salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam taasa marka isha waxa ku gaarayna maxabada nabiga alayhi salaam waxayna gaarsiinaysaa marka salliga nabiga marka badana maxabadiisa na gaarsiinaysa haday maxabada na gaarsiinaysaa waxayna gaarsiinaysaa ittibaaciisa nabiga alayhi salaatu wasalaam haday ittibaaciisa na gaarsiinaysaa waxayna gaarsiinayna markaas haday marka nabiga alayhi salaatu wasalaam wadadiisii inaan raacno oo ku dhimano ku soo ilaahay nagu soo bixiyaan rajaynayna haddana qaafiliin noqono oo nabi cali salaatu wasalaam iska dhaafno oo xataa maanta kale xalay aan soo dhaafno kale markay ugu badan tahay in nabi sallallahu alayhi salaatu wasalaam marka aan salliga nabiga badina waqti la ciisa si aan yawm al-qiyaamah u noqono ku ugu dhow nabi cali salaatu wasalaam si ilaahay dambigan uu dhaafo hamigeena u burburiyo u baabiyo qisa waxa iska jirtay la wariyo oo nin waxaa jiray Madiina oo deyn lagu lahaa xaytan shata boqol waxa way ka soo baxaysa baytul maalki tan waa jeebkayga ana ku siiyay ninkii maadaama uu korbaysnaa ninkii wuxuu yimid qaadiga si uu lacagtii u gudo qaadigaasna wuxuu ku rooday nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri shalay qofkii aan dartii kugu fasaxay dartii baa xala ii yimid alayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray inaan diinta ka bixiyo marka 500 ninka kugu lahaa ma qaadanaba kugu wada 500 lahaysay buu yiri isaga bixi deynta
ninkii deynta lahaaba haddana yimid haddana nebigan ku reeda calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi haddaad deynta u dhaafto ilaah baa deynta kuu dhaafaya aakhiro dembigaaga la dhaafaya deyntii aan kugu lahaa waan kuu dhaafay 500 oo dheeraadkaana qaado waa qisa waaqiciya waxay tusaale u tahay ay caddeyn u tahay badinta nebiga saligiisa oo la badiy calayhi salaatu wasalaam labadii qisoo laga helayo idan tukfa hammuk wa yaghfaru dhanbuk dambigaana waa la dhaafi hamigaagana waa la tirtiraya ninkii madiinka maanta wuxuu soo waarbiris isagoo lacag tira badan haysta taajir oo lacag badan xoog la haysta markay qawaani aan saliga nabiga badina calayhi salaatu wasalaam tusbax maanta wuxuu noo yahay mudakir uu xasuusanaya qof tusbax markuu gacanta ku hayo wax uun buu aqrinaya salli aqriya ikhlaas aqriya tawxiid aqriya istighfar aqriya wax uun buu haystaa laakiin markaad hayso waa laga yaabaa inaad xoogaa ka mashquushid marka qof kasta oo annaga naga mid ah khayr allaha siiyo ha samayso wardi oo maalintii ah oo sali nabiga calayhi salaatu wasalaam badinta saliga nabiga xuduud ma leh waa adoo waxaagoo dhanba ka dhiga laakiin waxaa ugu yar maalin iyo habeenkii inaad nabiga ku sali calayhi salaatu wasalaam 300 miyay nagu badan tahay كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة waxaa ugu yar 300 sidii culimada sheegeen marka 300 aan wardi ka dhigan khayr allaha siiyo culimada ku gardarreystay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.